marka hore bal waxaad sharaxaad inaga siisaa waxaa jiray maalin ka hor shir maaragta ay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur afrika la qaadatay safaaradaha dalalka afrika ka jooga dalkan koonfur afrika shirkaasi waxyaabaha looga hadlay waa maasantaa qorshe shirkaas ujeedka waxaa iclaamiyey dowladda koonfur afrika khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa looga hadlayay wuxuu ujeedku ahaa in safaaradaha loo sheego meesha ay maraysa hawsha ay dowladdu wato ee ku saabsan nabadgelyada ajaanibta ay matalaan safaaradaha waddankan jooga waxaa laga hadlayay in dowladdu siyaasadeedu ay tahay in ay joojiso falalkaas burcadnimada ee ay wadaan dadka yarka ah oo criminal elementska ah waxay kaloo dowladdu caddaynaysaa inay ka xun tahay waxa dhacaya wasiirka arrimaha gudaha afkiiska caddeeyay waxay kaloo caddaynaysaa inaysan dadka muwaadiniinta koonfur afrikaanka ah wax matala aysan ahayn laakiin dad qulqulato wada oo criminals ay hawshaas wadaan waxay dowladdu caddaysay inay ka go'an tahay siyaasadeeduna tahay inay badbaadiso nafta dadka ajaanibta ah waxay doontaa ku qaadatay waxay kaloo naga codsatay wasaaradda arrimaha gudaha wada shaqayn inay jirto degdega la iskana warhayo muwaadiniintayadana aan xogta gaarsiino waxaa kaloo waddan gooni looga codsaday communitygiisa problemyada ay qabaan oo waddankan communityada laftooda ajnabiga dhib baa lagu qabaa in safaaraduhu kala shaqeeyaan sidii dadka loo wacyigelin lahaa tusaale ahaan hubka sharci la'aanta in la iska ilaaliyo tusaale ahaan in dagaalkii fowdada laga qayb qaato marka wuxuu ahaa kow warbixin uu wasiirku dhiibayay iyo premierka madaxweynaha gobolka KwaZulu Natal ay isla bixinayeen iyo wada shaqayn laga wada shaqaynayay hawshan sidii xog la isku dhaafsan lahaa iyo iyadoo dowladda koonfur afrika ay caddaynaysa inay ka go'an tahay inay dadka badbaadiso iyo inay ka xun tahay waxa dhacaya waa tahay waxaa jirta markii uu barnaamijkan bilowday in dad badan oo Soomaali ah qaarkood ganacsigooda la boobay dad kale oo ajaanib fara badanna waa la soo boobay waxaa jira shirkaas in maaragta loogu yeeray safaaradii guud ahaan safaaradaha ma ka hadleen dhibaatada ka soo gaartay iyo xalka dowladda koonfur afrika ay hayso waa laga hadlay laakiin nooca looga hadlayaa waxay tahay dhibkan waa in dowladda waxa lagu bushkareynayay inay joojiso in aan dadku dhiman inaan hantida la dhicin taasaa safaaraduhu codsanaya dowladduna ayadaaba safaaradaha kaga horeyso waxay ugu yeertay inay u sheegto inay ka go'an tahay badbaadinta dadkan iyo hantidooda laakiin waxay yihiin wax dhib badan waa dhalinyaro is abaabushay oo markay locationkan ay tagaan halkan oo xagga lagu yaaco daba marayo waxay u baahan tahay 50 qof oo waxa bilaaba ama 30 qof oo waliba ciyaal yaryar iyo tuugo u badan marka waana kala carray wixii marka laftigooda si loo manage gareeyo ayaa la laayaa ma ahan ciidan soo duulay oo la yaqaan oo ma ahan waa dagaalkii magaalooyinka dhexdooda ahaa oo kale tahay marka dadka hadda barnaamijkan oo kale saameynta ku yeeshay ee Soomaalida ah waxaad ugu booqatay deegaankii ay dhibaatadu ka dhacday ma lagu soo gudbiyay ama haysan tiro rasmi ah dadkii halkaasi ee Soomaalida ku gaareen la soo jiraan dad Soomaali ah oo sida la sheegay waxa la sheegay dad ajaanib la gubay ku jiraan dad Soomaali ah tiro rasmi ah dadka halkaasi ku dhintay ma jiraan oo Soomaali ah qasaaraha Soomaaliya inta soo leeyahay sida guudba KwaZulu Natal waxa ku dhimatay 6 qof oo laba ka mid ah Ethiopian yihiin waxa kalena ay Malawiyan Zimbabwean iyo South African wax Soomaaliya ku dhintay mal wax Soomaaliya la gubay oo KwaZulu Natal ma lahan waxa jira laakiin tukaamo la boobay Soomaalidu gobolkaas kuma badnayn waana sababta keentay inuu dhibku ku yaraado labadii sano u dambeysay baa dad badan aadeen hadda 500 oo qof baa degan baa la leeyahay ay la tirada tahay lama hayo tukaamada 170 bay marka ninka ugu badnaa uu sheegay marka wixii wax register ma aha laakiin tukaan Soomaaliya oo la dhacay waa jiraan qof Soomaali oo dhintay ma jiro qof Soomaali la gooyna ma jiro waana alxamdulillah rabbil caalamiin hantida waa la tabcay laakiin naftu inay noo badbaado waxa hadda waxa jira in cabsida kale ay qabaan ganacsatada gobolka Qajeelo kale waxa la sheegay in qaarkood ka cabsanayaan dukaamada ay xireen inka safaarad ahaan maxaa arintaasi ka leeyihiin xaaladda imika waa sidii dadka maxaa ugu baaqaysaa dadku waxaan ugu baaqaynaa kow inay istajiyaan dadkeenu fidnada ayaga faafiya warar been ah oo aad u fara badan Soomaaliya la dilay Soomaaliya ma ahan waxa la rabaa qofka inuu sheego wuxuu kow dadku inay istajiyaan labo waxa la rabaa qofku badbaadada naftiisa asaga qayb ka waa inuu booliiska wadanka la shaqeeyaa waa inuu community-da la shaqeeyaa waa inuu safaaradda la soo shaqeeyaa waa inuu dadka asxaabtiisa ku xeeran la shaqeeyaa waqti xun waa inuu socon hanti iyo lacag waa inaad meel suuq macnaha isku rarana aad u qaadan xilli fiican waa inaad socotaa dukaanka waa inaad dhex seexan yani waa la yaqaanaa steps ka mar walba aan ku celcelino laf dhabarka u badbaadinta qof nafta Soomaaliya intaas baan ku celcelinayna iyo
hadda xaaladdu waa ka degdegsan tahay in alert la noqdo qof walba Soomaali inuu dhagihiisa indhihiisa furo dadkiisa la xiriiro safaaradda la soo xiriiro booliiska la xiriiro is ilaaliyo fidnada socotana ana qayb ka noqon